السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkayga muslimka oo walaashayda muslimadda ahay waxaan rabaa inaan iraahdo sideed jannada guri uga dhisan kartaa. waxaa hubaala qof kastoo inaga mid ah inuu ku fikirayo in ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa uu geeyo aadna aan u jecel lahay allana ha inoo geeyo hana inoo fudaydiyo wadooyinkii lagu aadi lahaa. waxaan rabaa inaan ku tusiyo 3 arrimood oo saddexdaba uu rasuulku sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiid sheekh al-albaanina uu saxiixiyey saddexdaba in mid walba oo ka mid ah jannada guri looga dhisan karo. bal laba ka mid a wuxuu sheegay guri baa looga dhisan karaa, midna wuxuu yihi qasran fil janna, waa dabaq ama building weyn aan iraahdo ama cimaaro weyn oo looga dhisan karo jannada. midka koobaad wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam qofkii masaajid ilaahay dartii u dhisa walow dhismaha masaajidku ha la ekaado meel oo meesha ay shimbirtu ukunteeda dhigato wax la eg. shimbirtu ukunteeda meesha dhigata waa meel yar, meesha wax la egna aad ka dhistidee bana allaahu lahu baytan fil janna, ilaahay qofkaa jannada guriga uga dhisaa. waa number 1. midda labaad rasuulku wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam qofkii tukada 12 ragcadood oo sunno ah oon waajibka ku jirin, waa salaadaha witrka ah ee salaadaha kale waajibka alla raaciyo, ilaahay wuxuu u dhisayaa bana allahu lahu baytan fil janna, gurigu alla jannada uga dhisayaa. midda saddexaad rasuulku wuxuu yihi sallallahu alayhi waalihi wasallam qofkii aqriya suuratu al-ikhlaas waa qul huwa allahu axad ilaa uu ka dhammaystiro oo suuraddaa dhammeeya 10 jeer maalintii ruuxii aqriya, bana allahu lahu qasran fil janna, ilaahay jannada building buu uga dhisayaa. building waa cimaaro, waa guri weyn oo qasriga sida qasriga madaxtooyada madaxdu degan tahay mid kasii weyn ayuu allah uga dhisayaa subxaanahu wa tacaala. cumar bin al-khataab baa rasuulka ku yidhi yaa rasuul allah, hadday sidaas tahay alleelaha guryo badan baan dhisanaynaa. rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam allahu akbar wa atyab, ilaahay baa weyn, ilaahay baana wanaagsan. haddaad dhisataan ood shaqaysato ilaahay waa ku sinayaa, kaa dayicmi maayo. markaa qof walbow ku dadaal inaad guri dhisato. waxaa kaa xiga qasri jannada inaad ka dhisato, cimaaro weyn ama guri weyn aad ka dhisato, qul huwa allahu axadun oo 10 jeer aad aqrido insha allahu tacaala. adigoo masaajid la dhisaayo wax ku darsada ma aha macnaheedu keligaa inaad wada dhisto kulligii. waxaa lagu haddaad dhisto waa kasii fiican yahay. haddaad meel yar oo shimbirtu ay dhigato ukunteeda aad ku dartana waa alxamdulilah. 12 ragcadoodood maalintii tukatoo sunnaana guri baa jannada. ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna waafajiyo, ilaahayna haynoo fududeeyo acmaasha haynaan la nimaadno, allana subxaanahu wa tacaala haynagu hadeeyo oo wadooyinkeeda haynagu fideeyo. jazaakum allahu khayr. khayrka usii gudbiya walaalihiin, qof walbo walaal ah usii gudbi walaalkaa khayrka insha allah. addaalu cala alkhayri ka faacilihi buu rasuulku yihi, khayrka qofka dadka tusiyaay wuxuu la mid yahay qofkii tusiyey. man sanna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama. marka sunnadaa wanaagsan kelima ha loo gaarhsiiyo ummadda. balliquu canii walow aaya, ummadda kalena adiguna gaarhsii. wajazaakum allahu khayr. sala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamed wa saxbihi ajmaciin. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.